It's a little sting when I'm talking. Somehow my doubts seem locked in. So true that all too often we forget ourselves. Hey, what is salaam markale waa Somali Royal Family waa aniga Anas Abdiya iyo barnaamijkeeni qiso iyo sheeko ka hor intaan barnaamijka guda galin qiso iyo sheeko waxa ugu talagalnay asxaabta inay nala wadaagaan qisooyinkooda ama sheekadooda sidoo kale waxaad nagala soo xiriiri kartaa WhatsApp-kan nala wadaag qisadaada ama sheekadaada sidoo kale subscribe oo YouTube barnaamijkeeni qiso iyo sheeko wuxuu inoo mareeyay qisadii aan u bixinay jacaylkii ka bilaabmay fasalka saddexaad ee iskuulka oo ku socotay wiilka u bixinay Salmaan iyo gabadha u bixinay Saabiriin. Salmaan iyo Saabiriin waxay ahaayeen dad iskuulka fasalka saddexaad isla bilaabay. Fasalka saddexaad bay ku dhameysteen afraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad intaas oo fasal. Salmaan wuxuu yiraahday gabadhan wuu fiirin jiray waxaan ku iraahday xashaqiyad mutqaanaadi nin yarna wuu ahaa laakiin intaas kadib fasalka sideedaad waxa ku bilaabatay Salmaan iyo inay wax yar wada kulmaan ama is arkaan xoogaa yar kadib marka fasalka form 1 marka la soo gudbay dugsiga sare waxa bilaabatay Saabiriin inay markaas ayadana bilowdo inay fiiriso Salmaan sababtoo ah dhowr sano oo soo fiirinay hadda laakiin ayadana way isbedeshay oo dhankiis waxba u galay sidoo kale waxay bilowday inay fiiriso waa la soo socday kadib wuxuu gaaray Salmaan heer uu ka maarmi waayo heer uu dareemo marka inuu jecel yahay عقليسي نفسيا أصلا دمو كريبو وين هذا واحد بدن بس بدري وقت كتب بيها كدب بحالة على سلمان إنه عد صودا صابرين تلفون كذا وحاسينه لكن صابرين تلفون وحاسميه سهزين لكن هذنا وحو نفس ديس أشياء إنه أشياء صابرين إنه تعليها لكن لو تجار صدق تجار أفر تجار يكبضن مركب أسرة كل واحد إنه أشياء ومر وضمبين وحو جبر صاحبته أفر فرين أهاي inay u sheegto Salmaan gabadhan inuu jecel yahay Saabiriin ah sidoo kale Saabiriin codsigii markuu gaaray gabadha saaxiibteeda soo baxday Saabiriin uu u sheegtay wuxuu ku tiraa Saabiriin wiilka Salmaan ah uu ku jecel yahay wana kaasa xaaladana saasay ahayd wuxuu yiraahday waan rabaa habeenii maalin Saabiriin sidoo kale way faraxday waxay sameysay way ogolaatay codsigii laakiin waxay tiraahday anigana shuruudaan wataa shuruudadaas hadduu ka soo baxayo anigana waan yeelaya jacaylkiis laakiin way ku faraxday inuu la soo xiriiray oo ku yiraahdo waan ku jeclahay sababta ayadoo way jeclayd ama qisadooda wax badan baa soo wadnay hadda ma soo dulmari karo ka fiirsan kartaa YouTube-keena Somali Royal Family. Salmaan markuu codsi u dalbaday Saabiriin oo ku yiraahday Saabiriin waan ku jeclahay oo Saabiriin codsigii uu gaaray Saabiriin ayadana waxay soo fartay ayadoo jecel Salmaan oo rabtay inay la xiriirto haddana waxay tiraahday waxaa haystaa shuruudahaas hadduu ka soo baxo Salmaan anigana diyaar baa u ahay xiriirkiisa inaan la xiriiro inuu qofkayga noqdo wakaasa halkaas inoo mareysay halkaas noogu qabanaya marka Saabiriin sida aan sheegnay waxay ahayd gabar wadaad ah oo gurigooda joogta sidoo kale waxay ahayd qof akhyaar ah oo aanan gabar fudfudud ma ahayn oo adiga asxaab iyo groupe iyo waxaas iyo ku xiran gabar waxa ahayd adiga كور معقولة هاي كدب سلمان أصلاً سيدو كله ما هين دليل فوضى إسكتشرتو أديك إسكت دليل رئيس أو أديك جروب يسيدو كله تيم وحاس كله بحثك ما هين خيارها لو وضوح هاي لو وقفوا واحد برشلونة كوفي عن سيدو كله لو وقفوا دليل أنا وياهاين سيدو كله سكول كيس لصوب بالعابين فسر كوا إلا يو حد أي مريين فونتوغودي waxay iskugu sheegteen wuxuu Salmaan u sheegtay inuu gabadha jecel yahay kadib Saabiriin gabadha codsiga u soo dhiibtay waxay ku tiraahday Salmaan kadib markuu fariin u furay Saabiriin oo ah inuu jecel yahay Saabiriin ayadana waxay tiraahday Salmaan hadduu rabo inaan aqbal xiriirkiisa waa inuu anigana shuruudahayga aqbalaa kadib Salmaan waxa soo gaartay fariintii gabadha saaxiibtii Saabiriin saaxiibteeda ahayd baa soo gaarsiisay wuxuu ku tiraahday okay Salmaan aniga arintaada u sheegay Saabiriin wuxuu soo tiraahday sidaan waa in adigana shuruudahii ka soo baxday hadii aad rabtid xiriirkayga okay wuxuu yiraahday aniga marka wax kasta oo shuruud ah waa aqbalay hadaan ba ayada helayo wax kasta oo shuruud ah diyaar baa wuxuu ahaa inaan aqbalo hadaan ayada helayo
waxay ku tiraahday marka koowaad shuruudda koowaad waxay tahay in aniga ku soo waca ma ahane adiga inaad i soo wacin. Okay, shuruudda labaad waxay tahay waxaanaad ii sheegtay oo ah inaa aniga i rabtid inay dhab kaa noqdo xiriirkan oo aadan xiriirkan marna burburin. fiiriya marka saddexaad inaanan wax kulna ani adigana dhex marin bay ku tiraahday oo habeen maalin iskuulka meelna aadan isku dayin in aniga ila kulantid. Okay, Salmaan wuxuu yiraahday marka haddaanba adiga ku helayo oo nafsadeyda ogaanayso inaa adiga ku haysto intaasoo sano qoftii aan soo jeclaa oo yaraantaydii qofka koowaad oo aan jeclaado noloshayda adiga ah tahay hadartaana iga aqbashay inaad jacaylkayga wax igala qabatid amaba aad xiriir ila wadaagtid wax kasta oo aad iga codsato oon kuu fulinaya diyaar baa u ah. sidii waa asagana go-aankii ku qaatay. waxay isla go-aansadeen inay keligeed soo wacdo asaga uusan raadin maadaama aysan taleefon lahayn. waxay kasoo wici jirtay taleefonka hooyadeed. waxay kaloo isla go-aansadeen inaysan kulan habeen maalin duhur casir inaysan midna aysan kulmin, sidoo kale iskuulkana isku kulmin, sidoo kale xiriirkoodana inuusan midna mid kaleba uusan jarin. go-aan waxay ahayn marka aniga baa ka helay. marka wuxuu yiraahday Salmaan sidii baa waxa uu go-aansaday anigana inaan go-aankeeda la qaato. wuu soo socday waqtigeena wuxuu yiraahday marka nolosheeni page labaad oo meeshaas nooga biloobmay. kadib waxaa jirtay buu yiraahday marka iskuulka Salmaan waxaa u dhigi jiray macalin la dhashay Sabriin oo macalinkii dhamaa oo xiisad iskuulka bixinayay baa wuxuu la dhashayba Sabriin. marka wuxuu yiraahday macalinkaas aniga respect u hayay waa ka leexan jiray macallimiinta kale iyo sida aan ula kaftamo ama hadalada ugu iraahdo asoo kuma dhihi jirin. marka asagana wuxuu yiraahday sidoo kale tixgelin buu yahay maadaama أنا وليجن أسكت عين وحيرا وليجن أسكمان عين وليجن أسكمان حمانين وأوجا ويراد إنه صابرين الشيء لكن وحونها ويرادين معلن وحوها أدو كل أو أردد مرك قارح التفسيره كي سكول والله وحكسم به أما با حسيتي سوح كخلده مركو ويراد معلن وحوها أدو حنا قبل لكن أنا أهانتي ذا وليجن أسكمان عين ويراد حسيتي سنة 6 سنة وذا قاعدين جرني banaankaas waxaas markaas ku aragnaa si fiican baa u salaami jiray sababtoo asaga iska warqabo Soomaal markuu wuxuu yiraahday asaga respect u yahay anigana macalimiinta kale ilmo samid ahayn tartiib baan u xalin jiray arintiisa tartiib baa u salaami jiray meelaha marka aan ku arko heesidiisana si fiican baa u wada qaadan jirnay waliga khaladna ma dhexmarin markuu wuxuu yiraahday anna waa ogaa inuu Sabriin la dhashay markuu wuxuu yiraahday iskuulkan ku soo laabtay arinteena sidii u socotay fasalkeeni saddexaad baa ka soo gudubnay waxaan soo gaarnay form 4 keeni fiiriya sidaa waxay ka bilaabatay fasalka saddexaad ee iskuulka hadartaan waxay maraysaa form 4 marka wuxuu yiraahday sidii baan form 4 ku bilaabanay anagoo nolosheena iska fiican tahay oo iska warqabno soo wacdo oo aan ilkeenu aad isku bedelay oo aad u faraxsanahay oo qalbiga farxad ka dareemayo markasta waa isoo wacnaa waa wada hadalnaa si fiican ah wada hadalnaa oo wada sheekaysanaa mustaqbalkeena ka wada hadalnaa ugu dambeyn wuxuu yiraahday waxa dhacday maalin inay ii sheegtay taleefon inay soo qaadatay maadaama ay form 4 noqotay taleefonkeeda soo qaadatay WhatsApp bay samaysatay sidoo kale wuxuu yiraahday anigana WhatsApp baan lahaa marka wuxuu yiraahday arinteena sidoo hore ka fiicnaatay marka waa wada sheekaysanay si fiican oo wada xiriirnay xiriirkana sidoo hore uu iska bedelay dad waxaan noqonay xiriirkoodu si adkaaday kadib wuxuu yiraahday waxa dhacday iskuulka markaas in laga wada ogaado inaan xiriir wada leenahay marka ardayda badanaa wayna ogaayeen buu yiraahday dadka aan meelaha ardayda asxaabta iyo dadka nagu xiran anaga kulligood wada ogaadeen dhalinyaro badan wuxuu yiraahday marka gabadha maadaama ay ahayd gabar qurux badan oo aad u qurux badan wuxuu yiraahday waxa ardayda oo dhan dhalinyarada oo dhan waxay jeclaan jireen inay helaan markay ogaadeen taleefon inay qaateen dadka oo dhan baa soo raadiyay qof kasta taleefonkeeda wuxuu u soo maray qaar xitaa wuxuu yiraahday gabdhaha kale lacag ay ku siin jireen in lambarkeeda ay helaan marka wuxuu yiraahday ayana waxaas oo dhan kama cadeyn WhatsApp iyo waxaas cid kale kama heli jirin kaliya ay la heli jirtay waxbarashadeeda xiriirkayga bas nin iyo afaar kale waxaas wuxuu yiraahday nama soo dhaxgelin jiray aniga sidaas oo kale ahaa buu yiraahday maadaama aan dhalinyaro ahayn dumarka lama xiriiri jirin kaliya waxaan go'aansaday buu yiraahday qoftaan inay noloshayda part kamid ay tahay noloshaydana wada dhameysano kadib
arrinteena soo u macaaneed u qurux badnayd. Wuxuu yidhahday maalin gurigeeda ayadoo joogta baa waxaa dhacday, waxaa soo telefonkeedii meel yaalla, waxaa soo qaaday walaalkeed xaaji feer weyne ahaa, marka sidoo kale macalinkana ahaa, sidoo kalena ardaydana feeri jiray qaarkood. marka waa idiin soo sheeka dhaafay. wuxuu yidhahday Salmaan, waxaa jirta yar aan saaxiibanahay, markaasaan waxaan ku dhihi jiray niyow macalin hebel hadduu ogaado inaan Sabriin wada sheekaysano ama Sabriin wada socono ama niyow boxer igala daalaayo yaa isjibiya. markaasuu kale wuxuu dhihi jiray saaxiibka ayaa uu yidhahday niyow wallahi ninkaas waa qabanaynaa saaxiib gacli, wax naga qaadaya malahan, hadduu afaaraaga soo galo adigoo israacayna ii sheeg. marka wuxuu yidhahday waxaa iska dhacdayba oo dhacday maalin. wuxuu yidhahday ayadoo gurigeeda iska joogta, telefonkeeda uu soo qaaday, whatsappkeeda uu galay macalin feer weyne. wuxuu sameeyey whatsappkii markuu galay wuxuu arkay Salmaan telefonka magaciisa ku qoran yahay, wuu ku dhuftay, wuxuu arkay message-yadii, wuxuu arkay sawiradii, wuxuu arkay uu yidhaahday wixii calaacal iyo afaare iyo waxaas oo dhan akhrinayay. wuxuu yidhahday whatsappkii wixii ku jiray oo dhan buu arkay, kadib arrintii oo dhan buu ogaaday. kadib wuxuu yidhaahday si fiican markuu ishii uga buuxsaday oo message-yadii iyo wixii dhan akhristay, xaaji feer weyne wuxuu sameeyey, wuu soo baxay, family iskugu yeeray. wuxuu yidhahday gabadhiina arka waa kana whatsappkeedii. isi wanaag whatsapp gabadha waxba kama khaldanayn, kaliya wiil bay xiriir la sameynaysay, maadaama ayadaba ahayd qof akhlaaq leh oo wanaagsan. kaliya waxaa dhacday inay wiil xiriir la sameysay, bas family ay wada arkeen message-yadii whatsappkii waa la wada arkay, wiilka sawiradiisa waa la wada arkay, asaga wiilku wuu yaqaanaa, ardaydiisu ka mid yahay. kadib wuxuu sameeyey ayadii buu u yeeray, meeshii family-ga fadhiyeen buu soo fadhiisay, hooyadii aabba asagii walaalo kulli. waxaa la yidhahdaa arrintan maxay tahay? ayada marka waxaas dhan waxba kamaysa ogeyn in telefonkeedii xaalkan marayo. way timaaday, waxay tiraahday markii la weydiiyey maxay tahay ninkani waxaan way akhrisay lagu akhriyay, maxay tahay arrintan, waa maxay aaway qoftii aan kugu naqaanay. ayaga marka dhibka dhan waxay u arkaan telefonkan dhowrka isbuuc ay wadato. markaas waxay tiraahdaa may saas ma ahan, sida wax u qabtaan ma ahan, istajiya caadi ila hadla. qof caqli badan bay ahayd. marka waxaa la yidhahday okay waa yahay, noo sheeg maxaa weeye arrintan. kadib waxay tiraahday sida u qabtaan ma ahan, aniga ila hadla, si fiican ila hadla, waan ila hadlayaa, wax kastana waa idin sheegayaa. family-gu wuu xanaaqsanaa, aad u kacsanaa. waxay dhaheen ilaa waxaa lagu xukumay wiilkan agtiisana kuguma arki karno. waxay ku dhaheen daradaan waxaanay kuguma arki karna calaa itaxaal, qofkan lama xiriiri karin, stop, george, mar dambe xiriirkani waxaanay ma dhacay. ayaga arrintoo arrin fudud bay u arkaan, ma ka war hayaan barnaamijkan inuu fasalka saddexaad ka bilowday. si aataba Sabriin waxay tiraahday maysa u qabtaan ma ahan, aniga wiilkan wiil wanaagsan weeye, wiil fiican weeye, mustaqbal baa iska leenahay, sidaa u qabtaana ma ahan, qof xunna ma ahan, wiil walaalkay wanaagsanna weeye, wax aan ku jiro aan ku xumeeyana ma lahan, wax kale ii sheega. gabar fiican bay ahayd. okay xaaji feer weyne wuxuu yidhaahday noo sheeg waayay sababta wiilka ugu dhigan tahay, annagoo dhan baa kula hadlayna, maxay tahay? iska dhaaf, ma iska dhaafi kartid. marka waxay tiraahday soo u qabtid ma ahan, wiilkan fasalka saddexaad ee iskuul hebel bay arrinteena ka bilaabatay ilaa ay gaarto maanta. marka wax kastoo soo dhacay u sheegtay, wax kastoo u sheegtay, ugu dambeyn go-aanka isla qaateen bay u sheegtay, xilliga arrintooda isku sheegteen bay u sheegtay. adiga hadirtaan inta ugu dambeysa meel wax marayaan kulli u sheegtay. marka waxay ku tiraahday wiilkan waxaan ku jiran anigana ma hayo, waana qofka aan rabo inuu mustaqbalkayga noqdo, maxaa kale wax khalad ah hadirtaan ma jiraan, wada xiriirayna kaliya maxaa wada xiriiraysaa ma ay uga haystaan. marka macalinka wuu fiicnaa, xaaji feer weyne kama suwaalin. wuxuu yidhaahday okay waa inaan asaga la hadlaa buu yidhahday. marka waa inaan asaga raadiyaa. family-ga way la qaateen, waxay dhaheen waa yahay haddii adiga u aragtid inuu wiil fiican yahay okay bay dhaheen, waa arkaynaa. family-gu wuxuu ku yidhahday xaaji feer weyne suga, anaa wiilkaas la soo hadlaya, wuxuu yahayna waa soo ogaanayaa. bes maalin Salmaan oo iska fadhiya oo weliba yarka saaxiibkiisa ah uu ku dhihi jiray
niyo ninkaas amu ifeeraan oo ninka feeraha weyn la gabadha intuu ugu ogaado inaan la xiriiro baa xaaji feeroweyne wuxuu soo wacay ninka la yiraahdo Salmaan kadib telefoonka markuu soo dhacay oo soo fiiriyay wuxuu yiraahday hello ii waraseetaan fiicanta waa la iswareystay waa macallin hebel haye wuxuu yiraahday marka ariga wadna gargariir waa naxay bas way maanta lagu feer la waxa la yiraahday marka Salmaan meel heblaaya jooga magaalada meel heblaaya ka fadhiya igu imow saacadan right now soo imow dhaqso hadda imow marka wuxuu yiraahday telefonkii baa jiray yarka saaxiibka ayaa u sheegay waxaan ku yiraahdaa baato ii dhamaad saaxiib boxer la ciyaaraya micnaha la feeri doona markaas yarka saaxiibka wuxuu yiraahday israacina saaxiib mid kaaga haray malaha ninkan wada feera amaba iska celinayna anikan sidii ويرادي waxaan ku iraad yak saaxiibka ah Rumeyniyo arintaas ma aha ninkaan akhyaar weeye anina way ogyahay qofka ahayo asoo wada hadlayna adiga subalniyo yak saaxiibka ah sidii meeshii ku fadhiisiyay kadib Salmaan waa soo baxay kaligiis wuxuu u yimaaday xaj feerweyn oo fadhiyo xanaaqsan oo ninkaan rabo inuu boxer ku qabto kadib waxa dhacday arintaas ma ahaynba in akhyaar oo macalin wanaagsan buu ahaa macalinkana markasta dadku ka duwan yahay waa ogtahay ku maskax badan yahay qof wax bartay weeye marka wuxuu ku yiraahday haye maba iska dhigin ba arin inay soo dhex martay asaga iyo Saabiriin wuxuu yiraahday niyahow masjiran arkay maxaa weeye adiga Saabiriin dhexdeena maxaa ka socda marka oraa waxa loo yiri sir maqabahe sabab iyo celiso ma ahayn ay mahmaayad isku fiicnay laakiin Salmaan wuxuu yiraahday okay arinteena oo dhan hada kaaga sheego beenkaaga ma sheego yiraahdo sababtoo ah wuxuu yiraahday beenka ma sheegi karaba aniga wax kasta aan sameynay aniga xaqiiqo ahaayeen waxa marka ay niini waxa si ku jirto oo aan xaqiiqo ahayn baa dhici karta may aniga xiriir nagama dhaxeeyo waxa saxo kama jiraan laakiin wuxuu yiraahday asagoo iyool baaraya oo hadana rabo inuu wax iga ogaado ba hadana aniga xaqiiqada ka helay maadaama waxayga oo dhan ay xaqiiqo yihiin oo aan ogahay qof aan ayada ahayn inaan guursanayn أنا سدل إسرب إنهم قلسوا مركو حوي رهذي وحنكو إرهذي حاج فيروينو مقع اسمه وحنكو إرهذي هبلو معلو أنا أنت إذا هتاكو شيء صابرين وحي هيد الكقف أو كواد أنو لا شيء أن جعله إلا حدرتان ويتا إلا ما أنا هنا قف كل جعل عندهم وحن ربا أنا قبل المستقبل كي نقطه وحن ربا الميجا هو يض إنه نقطه وحن ربا قف عن رشة كود تلعب سنة إنه نقطه waxaan rabaa qofkii inay noqoto marka xaj feerweyne arinta dhan baa loo sheegay waxa lagu yiraahday Saabiriin mana ahan saacad uu qabtid buu ku yiraahday Saabiriin aniga maalin hiblaayo waan bilaabay inaan fiiriyo ilaa iyo maalin hiblaayo aan u sheegtay inaan jeclahay ilaa ay hadirtaan la marayo mustaqbalkeena iyo nolosheena ka wada fikirayno saasan aniga ayada ku wada dhaqanaa wax kale oo khaladana ma dhex maro ma kulanno waxaan ku iraahday kaliya xiriirkeena mustaqbalkeena wixii faa'iido noo ah ka wada hadalnaa ma dhalinyarnimo iyo waxaas inuu ma jirto annaga maskaxdeena waxaan ku fikirnay nolosheen inaan sa u maareyno ilaa waqtiga ay imaanayso aan halad noqonayno marka macalinku wuu biyaabayba labadan qof oo dhalinyarada ah hadana sida la arkay wax u dejinaya oo mustaqbalkooda noloshooda ka fikiraya oo hadana arintooda sida tartiibta u wata oo raba dad xaqiiqo ku taagan inay yihiin buu arkay kadib wuxuu ku yiraahday horta niyahow nin fiican baa tahay nin akhyaara tahay nin wanaagsan baa tahay nin xun ma tihid si ayada ay ka sheegtay anigana waa kugu aqaanaa oo weligay iskuulka khalad kuma arag marka wuxuu yiraahday bas si adiga ii sheegtay iyo inta adiga ii sheegtayba horaa waxa igu sheegtay Saabiriin anigana hadda laga bilaabo waxa go'aansaday in ana kaaga xumaan Saabiriin inaan la xiriirtid ayadana mar dambe aanan kelmad khaldan dhankaaga ka dhahayn inaanan telefoonkeeda cidna iska qaadan doonin nolosheedana inaad sideen ku wadataan kaliya noloshiina shaydaan iyo dhalinyarnimo iyo waxaas iyo isan soo dhexgelin sida u fikiraysan waa si wanaagsan wuxuu yiraahdaa macalinkii meeshii uu igu waaniyay nolosheenii igu taageeray wuxuu igu yiraahdaa hore u socdo waan idin ducaynayaa wakaasa bas meeshaas soo ugu haray kadib wuxuu yiraahdaa marka labaad oo waxay nolosheedii ugu farxad badnayd maadaama reerkeedii ay iga aqbaleen inaan Saabiriin qofteeda noqoto sidii baa kusoo tagay gurigayga imaaday buu yiri kadib Saabiriin baa wuxuu yiraahdaa text message u diray waxaan ku iraahday arinta noocaas ah dhacday waxay igu tiraahday aniga way igu dhacday waxaan kula soo hadli waayeen waxay ahayd isaga wuxuu igu yiraahdaa wacin ilaa aniga ala kulmayo anigana saas kuma soo wacay sababta waxaan ogaa
intaan aniga asaga u sheegay in adigana dhihi doontid oo xaqiiqada ah. marka wuxuu meeshaas kasii bilaabatay, horey uga sii socotay. waxaan ku iraaday jawigooda isku sii bedelay. laba qof oo waxay noqdeen kaliya waqti uga harsan yahay noloshooda inay midoobaan. kadib waxaa bilaabmay Sabriin iyo Salmaan inay kulmaan. Sabriin waxaa jirta gabar yar ka yar oo guriga la joogta, jaanis kale ma heli jirin. ayada gabadha yarta ah way soo raaci jireen, bes waqti yar wada qaadan jireen. kadib sidii way noloshooda ku socotay. adiga waxaa laga yaabaa 3-4 jeer wuxuu yiraahday inaan kulano labadii week oon waqti yar wada qaadano, waqti yar wada sheekaysano, kadibna saas ku wada tagno. marka wuxuu yiraahday nolosheena sidii bay ku socotay, sidii bay nagu sii macaanaatay, halkaasay ka bilaabatay, hore u sii socotay, aad ba u faraxsanayn. nolosheenii fasalka 3aad kasoo bilaabatay halkaasay waxay ku ahayd mid fiican. kadib marka maxaa dhacay, fasalka 4aad baa dhamaaday, imtixaamadii waa lagu baasay, form 4 wuu dhamaaday. waxaa bilaabatay in jaamacada la isku diyaariyo. iskuulka intuu socday waa la wada kulmi jiray, iyo waqti yar kale oo iska yar. laakiin hadduu iskuulkii dhamaaday waxayna bilaabatay in xoogaa la kala durqo, waa bilaabmaysa oo xoogaa ciriiris oo kale aragti hadday tahay iyo xiriir kaleba hadday tahay. marka wuxuu yiraahday waxaa bilaabatay in jaamacada iyo waxaas la apply gareeyo oo jaamacada iyo la kala codsado. wuxuu yiraahday ayadana waxay codsatay jaamacad Hargeysa ah, anigana waxaa codsaday buu yiraahday jaamacad Boosaaso ah. sidii waa jaamacaddii Hargeysa waxay ku aqbashay codsigii Sabriin. Salmaanna uu Boosaaso ku aaday. way kala fogaadeen, way kala durqeen. xiriirkooda sidoo ha u socdo oo ay siday ku kulmi karaan waqtiga yar ha ku kulmo. laakiin waxaa dhacday in xoogaa sidii hore ay nolosha iska bedesho, qofba meel ku cusub uu tago, asxaab cusub, nolol cusub. kadib waxaa dhacday qofba qof kale inuu ka ahaan waayo oo ay qasab noqotay in la is arko. jaamacadii markay bilaabmeen adiga sanad koowaad ee jaamacadaha, kadib waxay qasab noqotay in la is arko. laysmana arki karo, safar weeye, Hargeysa iyo Boosaaso waqti badan bay isku jiraan. kadib waxaa jaamacadeedana fasax ma lahayn oo ma lahayn xagaa oo kale in 2 bilood ilaa 3 bilood fasax ay soo qaadato ma lahayn. saas darteed marka ay waxay ku qasbanayd inay Hargeysa fadhido ilaa inta jaamacadda ka dhameysanayso. asagana jaamacad fasax way lahayd, laakiin muxuu ku qabtaa meel ma aadi karin. marka wuxuu yiraahday waqtiga ugu yaraa darteed waxaan ugu adkaatay inaan kulano. marka jaamacaddeeda si bay ugu heli weysay, waxay u bedelatay Boorame, jaamacad Boorame ku taalla u bedelatay. asagana markuu arkay Boosaaso inay u cuntami weysay jaamacaddii uu ka dhiganayay oo uu joogi waayay, wuxuu go'aansaday inuu asagana Boorame noloshiisa u bedesho. dad waaweyn baa leeyahay, dad waaweyn baa la noqday. noloshii yaraan bay kasoo bilaabatay ilaa haddeertaan way imaatay. kadib wuxuu yiraahday sidii ba anigana waxaa ugu soo bedeshay Boorame. nolosheenii meeshaasay kasii bilaabatay ilaa haddeertaan oo ay noqdeen dad midoobay oo xiriirkooda si fiican u dhismay, laakiin weli arday ah oo haddeertaan ku balansan inay isguursadaan oo ay noqdaan hal qoys. marka wuxuu igu yiraahday ugu dambeyn sheekada soo iga sheekaynayay, hadda marka waxaa laga rabaa hambaliyada mar dhow inaad soo dirtid, sababtoo ah jaamacadaha mar dhow way dhammaan rabaan. kaliya waxaa ka harsan buu yiraahday sanad wax ka yar. sanad kadibna arooskeena insha Allah inuu dhacaa rasheynaya buu yiraahday. marka anigana waa u ducaynayaa, idinkana waa inaad u ducaysaan. noloshooda kasoo bilaabatay fasalka 3aad waqti dheer kadib oo ka badan adiga 10 sano way midoobeen. dad waxay noqdeen hal qof isku ah, dad waxay noqdeen hal meel kasoo wada jeestay, dad waxay noqdeen noloshooda haddeertaan geeri ma aan wax kale aysan kala kaxaynayn. insha Allah Salmaan iyo Sabriin waxay ku balansan yihiin inay isguursadaan, waxay ku balansan yihiin inay awlaad wada yeeshaan, waxay ku balansan yihiin noloshooda inay horay u sii socdaan. idinkan usoo duceeya waxbarashadooda inuu Ilaahay u dhameeyo, noloshoodana meel fiican ay ku dambeeyaan. halkaas waxaa noogu dhamaatay qisadii Sabriin iyo Salmaan. waqtiga kooban dartiis baa aniga hadalkayga u bobsiinayay.
idinkana sheekada raba inaan la socodsiiyo mar kale waa barnaamijkeena qisa iyo sheeko waa anigoo Anas Cabdiya WhatsApp telefoonka nagala soo xiriir noo soo dir qisooyinkaaga nala wadaag sidoo kale qisooyinkaaga kaliya ma ahan hadaa sheekooyin noo haysidna waa la wadaagi kartaa mar kale waa Somali Royal Family channelkan subscribe saar Facebook page-keena booqo waa Somali Royal Family wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. It's a little sting when I'm talking. Somehow my doubts seem acting so true that all too often we forget ourselves.